كان lagu magacaabo xabaan oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada Caabudwaaq ayaa ururka daryeel bulsho ee gurmadka abaaraha waxay soo gaarsiiyeen deeq biyo ah deeqdaas oo dadka deegaanka aad ugu baahnayeen deegaanada galmudug ayaa waxay wajahayaan abaar xooggan sidoo kale lagu jira bil Ramadaan dadka deegaanka ayaa u mahadceliyay ururka daryeel bulsho waxayna ka codsadeen inay intaan ka badan soo gaarsiiyaan deegaanadan waxay sheegeen in biyaha hadda la soo gaarsiiyay aysan ku filin sidoo kale u baahan yihiin raashin dadka iyo dunyaduba ayna u baahan yihiin si degdeg ah in looga soo gaaro bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed caseer xareed gudoomiyaha deegaanka xabaalan ee hoostaga degmada Caabudwaaq waxaan halkaan uga mahadcelinayaa Ilaahay wanaag subxaanahu wa ta'aala waxaan kaloo mahadcelinayaa ururka gurmadka abaaraha ee daryeel bulsho oo na soo gaarsiiyay biyahan hadda arkaysan hadda gaarsiga lagu shubahayo ayadoo dadka hadda aad ay ugu tabaaleysan yihiin oo xilli iska diraaceed oo abaareed lagu jiro oo bil Ramadaan ah oo xoolaha dad iyo dunyada xoolaha iyo dadka isku six wax loo siinayo oo dad loo weeshadayo mid galay loo kariyo iyo mid bariis loo kariyo intuba ay yihiin xaaladdan aad iyo aad u adag tahay idinku hadda arkaysan wax hadda xoolo daaqaan oo hadda la yiraahdo xoolaha ku noolaan kara hortina aysan ka muuqan ayaa waxaan soo gaaray biyahan Ilaahay marka waxaan u leenahay abaarta naga saaro waxaan kala u ducaynaynaa mahadcelinaynaa dadkii la soo baxay sadaqadan iyo biyahan la soo baxay ayaan u ducaynaynaa Ilaahay wuxuu wax barakada ka dhigo rizq as soo gaarsiiyana Ilaahay waa ka gaarto ayagana Ilaahay dabada firaasiyo hal yaa loo baahan yahay biyahan kaliya loo baahna sida raashin u duuyo iyo midda intooda waa u baahanahay deegaanka waa looga baahan yahay waxaan rajaynaynaa intaan in kaliya aan soo gaarsiin doontaan Ilaahay idinkiis bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la dhahaa Xamdi Cabdulqaadir oo deegaanka xabaalan hoos joogta magaalada Caabudwaaq hoos gasha maxaa ayato abaar ka jiraan biyo gurmadaan la soo gaarsiiyay oo maxaa ayato ka socota daryeel ka socota oo ku maadsan daryeel bulsho ka socota oo ku maadsantiin gargaarka noo fidiseen maxaa ayato biyaas kaliya naafici maaya ka badan abaar iyo wax kasta iska jira maxaa ayato xooluhu baahida hayso raashin bay waayeen arko iska daba dhacay doon jiyaal weeye raashin iyo wax la siiyo lama arko dadku waa la mid walaal aad bay mahadsantihiin gargaarka naafaqa noo fidiseen waa noo sii wadaan oo dadku baahiya raashin iyo maxaa ayato wax noo keentaa walaal daryeel bulsho biyahan soo gaarsiisay waa ku mahadsantihiin meesha ka soo bixisaan wax qeyr badan Ilaahay nii geliyo saan noo soo gaarsiisin Ilaahay maxaa ayato amniga noo asturaad baan ku mahadcelinaynaa waxaad noo keentay wax ka badan baa Allah ina siiyo bismillaahir rahmaanir rahiim Ilaahay baa mahad iskale alxamdulillaah rabbil caalamiin magacayga waxa la yiraahdaa Deeq Gamaadiid Maxamed waxaan joogaa deegaanka xabaalan oo hoostaga degmada Caabudwaaq ururka gurmadka abaaraha daryeel bulsho baa u mahadcelinaynaa waxaynu soo gaarsiiyeen biyahayna soo gaarsiiyeen gurmadka degdeg ah noo fidiyeen aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay Ilaahay mahadin ka gaadho meeshaan abaar baan baa ka jira biyaha looga baahan yahay risaq kala badan baa looga baahan yahay soonqaad baa lagu jiraa biyahaas aad loogu baahnaana waxaan soo gaarsiiyay ururka daryeel bulsho waa looga mahadcelinaynaa 14 boqolka Ilaahay wax qeyr qaba Allah ku bedelo alxabkiiba Ilaahay soo bixiyay risaqaasna meel waxooda wax qeyr qaba Allah ka dhigo risaq ka fara badan Allah ugu bedelo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay ha u mahadceliyo